asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan kariim dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan waxaan leeyahay rabadaan kariim. waxaa farxad weyn ii ah anigoo ah ustaad maxamuud axmed xaaji maamulaha wax ka baro academy in aan inoo bilaabayo barnaamij aad iyo aad u xiiso badan oo aan ugu talagalay bisha rabadaan iyo ardada xiiseyso luuqadda ingiliishka. barnaamijkaasi magaciisa waxaan ugu magacdaray ramadaan english series. waa 30 maalin ayuu socon doonaa. maalin walbana waxaan soo gudbin doonaa dhowr jimlo iyo erayo loo isticmaalo bisha rabadaan ayaa soo gudbi doonaa. haddii aad 30 maalmoodka nala dhammaysato waxaad baran doontaa erayo kugu cusub oo aad iyo aad u fara badan iyo jumlooyin loo isticmaalo bisha rabadaan ayaad baran doontaa hadduu ilaahay ka raallo. haddii aadan nagu soo biirin fadlan nagu soo biir follow ama subscribe soo taabso hadduu ilaahay ka raali noqdo si aysan maalinna aysan kuu dhaafin. barnaamijka waxaa soo gudbinayo anigoo ah ustaad maxamuud axmed xaaji oo muddo 15 sano ka badan luuqadda ingiliishka dhigayay asagoo dhammaystiran si free ah wuxuu ugu jiraa applicationkeena wax ka baro academy qaybta free giftskan diyaa gashid waad arkaysaa rabadaan series ayaad arkaysaa. aan gudaha u galno maalintii koowaad iyo cashirkeena day 1 waxaan focuska ku saari doonaa sighting the moon and starting the month. aragtida bisha iyo bilaabashada la bilaabayo soonka ayaan kaga hadli doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. hore jumlada ugu horeysay aan baranayno waxaa weeyaan I need to prepare because Ramadan is just around the corner. waxaan u baahanahay inaan diyaar garoobo maxaa yeelay bisha Ramadaan waa ay soo dhowaatay. ereygan aan baranayno ama freeska aan baranayno waxaa weeyaan just around the corner. waxaan filayaa inaad horey u maqashay. haddii aadan maqlin hadda baro wax markay kugu soo dhowaadaan ayaa la dhahaa just around the corner. the exams are just around the corner. imtixaankii waa uu soo dhowaaday somahan. my trip to South Africa is just around the corner. safarkaygaan South Africa waadi lahay waa uu soo dhowaaday. waxaan kugu dhiirigelinayaa talada aan ku siinayo ugu wanaagsan ee aad ku xasuusan kartid vocabulariga iyo erayada aad baranayso waxa weeyaan mar walbo aad erey ama phrase aad barato meeshaasi ha oga tagin jumlooyin kale keliya fadlan ku ciyaara. erayadu waa lagu ciyaaraa luuqadda waa lagu baashaalaa waa lagu ciyaaraa jumlooyin kale iyo meelo kale ayaa la geliyaa. waxaan kugu dhiirigelinayaa qaybta commentiga inaad kusoo qortid just around the corner adigoo isticmaalayo jumlo kale oo aanan tan ahaynin. isku day inaad ka fikirto jumlo aad u adeegsanayso just around the corner qaybta commentiga kusoo qor insha allah. af soomaaliga aniga ayaa inoo sharxay waxa weeyaan waxaan u baahanahay inaan diyaar garoobo maxaa yeelay bisha rabadaan ayaa igu soo dhowaatay. maxaan jumladani ka baranay ereyga ugu muhiimsan ayaan ka baranay waxa weeyaan just around the corner oo micnaheedu tahay happening very soon. wax mar dhow imaanayo ama mar dhow dhici doono weeyaan. haddii aad applicationka aadan soo download garaysanin fadlan soo download garayso kadibna qaybta free giftska gal si aad codkani u dhageysatid. halkan cod ayaa kugu diyaarsan hadda waan ka gudbayaa. waxaan u gudbayaa jumlada labaad ayaan u gudbayaa. the moon has been sighted so tomorrow is the first day of Ramadan. the moon has been sighted. bishii waa la arkay sidaas daraaddeed beri waa ramadaanka maalintiisa koowaad weeyaan. ramadaanku waa maalintiisa koowaad. has been sighted ayaan baranaynaa waa la arkay weeyaan. sight ereygan sight waa aragti weeyaan. dhawaqiisana iska fiiri inkastoo gh ay ku jirto laakiin gh tan waa silent weeyaan. sighted ayaa lada has been sighted. passive voice weeyaan. passive voice xogaar waa advanced weeyaan laakiin sidiisa u qaado. the moon has been sighted bishii waa la arkay weeyaan. wax markii la arko ayaa loo isticmaalaa. qaybta commentiga fadlan kusoo qor has been sighted adigoo isticmaalayo. isku day inaad jumlo kale adeegsato hadduu ilaahay ka raali noqdo. bishii waa la arkay sidaas daraaddeed beri waa maalinta koowaad ee bisha ramadaan. vocabulariga aan ka baranay jumladan waxa weeyaan has been sighted waa la arkay weeyaan. micnaheedu waxa weeyaan is the formal way to say something has been seen. qaab formal ah weeyaan markay authoritiska ama dowladdu ay iclaamiso ama ay sheegto in bishii la arkay ayaa loo isticmaalaa. has been seen ayay micno ahaan u dhigantaa. good codkii jumladan halkan ayuu kugu diyaarsan yahay. during this month we fast from dawn to sunset. qof
aan muslim ahaynin ayaa ku weydiiyey maxaa qabataan bisha ramadaan maxaa waay ii sheeg. waxaa rabtaa marka inaad u sharaxdeed waxa bisha ramadaan dhaco soo maha. waxaa leedahay marka bisha ramadaan waxaan soonnaa laga soo bilaabo waa beriga ilaa qorax dhaca. down waxa weeyaan waa beriga weeyaan, waa beriga waagu intuusan berigin ka hor ayaa afkeena xiranaa ilaa laga gaaro ilaa intay qoraxda ka dhacdo maalin walbo 30 maalin waxa weeyaan waan soonnaa soo maha. down marka waxaan baranay down waa beriga weeyaan, sunsetna waa qorax dhaca. isku day marka inaad jumlad soo qorto oo qaybta commentiga aad kusoo qorto adigoo labadan eray isticmaalayo. tusaale ahaan oo kale waxaa dhihi karaysaa subax walba waxaan shaqadeedu ay bilaabataa waa berigii ayay shaqadeeda ay bilaabataa, waxayna ii dhammaataa gabaldhaca ayay ii dhammaataa. qaybta commentiga kusoo qor. alright, erayadan baranay waxa weeyaan waa down oo ah waa berigii, the beginning of the light before the sun rises, marka maalintu ay bilaabanayso weeyaan, iftiinka oo dhinaca bari oo iftiin kasoo bilaawdo weeyaan. sunsetna waa qorax dhac weeyaan, sunsetna waa qorax dhac. jumlada afaraad ee aan u gudubno, eating a pre-dawn meal is highly recommended during the month of Ramadan. Eating a pre-dawn meal is highly recommended during the month of Ramadan. inaan cunno saxuurta aad iyo aad baa loogu taliyaa bishan Ramadaan. pre-dawn meal waxa weeyaan waa ereyga saxuur micnihiisu waxa weeyaan waa saxuur weeyaan. meal waa raashin weeyaan ama xilli wax la cuno weeyaan meal. pre-dawnna waxa weeyaan aroorta ka hor. marka aan sidaas loo macneeyo waxa weeyaan aroortii ka hor mealka la cuno saxuurta ayaa lagu taliyaa in aad cunto bishan Ramadaan. waxaan kaaga digayaa marka inaad pre-dawn meal u isticmaasho qof muslim oo garanayo sharciga iyo erayada islaamka uu isticmaalo garanayo, oo uma baahnid ereygan inaad isticmaashid. waxaad isticmaalaysaa saxuur ayaa isticmaalaysaa, maxaa yeele saxuur already waa ay fahmi karaan soo maha. haddii laakiin pre-dawn meal isticmaashid then you will look unnatural, waxay kuu noqonaysaa waxa aan natural ahayn ayay noqonaysaa. oo keliya pre-dawn meal u isticmaal markii aad la hadlayso qof aanan sharciga islaamka garanaynin, aan muslim ahaynin ayaa loogu talagalay. maxaa yeele qofkaasi haddii aad saxuur dhahdo waxaa laga yaabaa saxuur inuusan fahmin waxa loola jeedo soo maahan. laakiin markii aad dhahdo pre-dawn meal aad dhahdo waxa weeyaan way u fududaanaysaa, waa raashiin la cuno intaysan qoraxda soo bixin ka hor soo maaha. alright, marka maxaan baranay pre-dawn meal ayaan baranay oo u dhiganto saxuur u dhiganto. waxaan kaloo baranay highly recommended oo ah aad iyo aad ayaa loogu taliyaa ama ku talin ama soo jeedin ama dhiirigelin weeyaan, in la dhiirigeliyo ama in la dhiirigeliyo. waa fahanteen filayaa. isku day marka inaad qaybta commentiga ereyada aad baranayso kusoo qorato adigoo jumla gelinayo. talada ugu wanaagsan vocabulary-ga waxa weeyaan si vocabulary aad u xasuusnaato mar walba jumlooyin geli hadduu ilaahay ka raali noqdo. haddii uu applicationka ku download garaysan yahay quizkan ayaad ka shaqayn doontaa. su-aashii ayaa halkan kuugu soo baxayso, kadibna jawaabtii ayaa dooranaysaa. jawaabihii markaa wada dooratay hoos aad tagtana natiijo ayuu ku siinayaa. haddii aad nagu cusub tahay wax ka baro academy waa goob aad luqadda ingiliishka dhan walba uga baran karayso, reading iyo writing iyo speaking. insha allah waxaan isticmaalnaa manhaj caalamiya oo la dhaho CEFR, isla xisaabtan dhabe. isbuuc walbo waxaan soo galaa live ayaan soo galaa oo practice aan ardada ku sameynaa si speakingka aad saro loogu qaado. marka soo dhawaaw ayaan ku leenahay. haddii aad faahfaahin dheeraad u baahan tahayna applicationka ku download garaysan yahay, waxaad taabanaysaa badhankan ay ku qoran tahay faahfaahintii oo dhammaystiran. kadibna insha allahu aad iyo aad baan kuugu sharxi doonaa sida uu u shaqeynayo. fadlan follow dheh si uu beri cashirka aan soo dhigayno kuu soo gaaro. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.